ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee Macawisleyda ayaa lagu soo waramayaa inay maanta dagaal ku wareegeen gacan ku haynta degmada Ruunurgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada oo saaka qaaday weerar culus ay gudaha u galeen degmadaasi oo in dhawaanahan bay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Ciidamada ayaa sidoo kale burburiyay xarumo iyo saldhigyo Al-Shabaab ku lahaayeen gudaha degmadaasi, halkaasi oo muddo ku dhumaalaysanayeen. Ilaa dadka deegaanka ayaa sidoo kale inoo sheegay in ciidamada Uganda ay hadda howlgalo ka wadaan degmada Ruunurgood kuwaasi oo amniga lagu xaqiijinayo. Sidoo kale ciidamada ayaa lagu soo waramayaa inay isku fidiyeen duuleedka degmada waxaana ku wajahan yihiin deegaano kale sida Hologaab oo hoostaga degmada Ruunurgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada ayaa horey u gaaray degmadani inkastoo markii dambe ka soo baxeen ayna dib ula wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Xaaladda ayaa weli kacsan waxaana haatan dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ka socdaan howlgallo culus. Qabashada ayaa timid kadib markii dowladda Soomaaliya ay xoojisay gulufka ay ka wado gobolka Shabeellaha Dhexe si looga hortago abaabulka kooxda Al-Shabaab oo soo gashay deegaano ka tirsan gobolkaasi oo hore looga xoreeyay. La wareegitaanka Ruunurgood ayaa sidoo kale wajic u yeelaysa dagaalka oo waana guul weyn oo howlgallada socda ka gaareen ciidanka dowladda iyo kuwa Macawisleyda. Jidda hore ee dagaalka waxaa haatan ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle oo isku dubaridayo dagaalka ka socda deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Si kastaba Soomaaliya ayaa guud ahaanba waxaa ka socda guluf dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab kaasi oo hogaamintiisu gacanta ku hayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.